السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابت شرفت بدن أكو على channel كان لطلية دالك بدن وحو كينا إنو جيل أهان إيه مسكحان بأو خير كاريبو هدي آد أراكتid إن آد مركز دالان تاهي oo halkii aad wax ka qabsan lahayd aad waqtigaagii ku dhamaysatid jiif iyo bilaa camal waxaa la joogaa waqtigii aad meesha ka kici lahayd aadna dib isu weydiin lahayd sababtan ka dambaysa inaad waqtigaaga badankiisa jiif iyo bilaa camal ku dhamaysatid waxaa jira sababo ka dambeeya daalka badan oo haddii aad baratid aad kaga hortagi kartid caajiska iyo daalkan badan ee ku haysta mar kasta fiidiyogan waxaa ku soo qaadan doonaa 4 qodob oo baaritaan kadib la cadeeyay inay yihiin kuwa ugu waaweyn ee ka dambeeya daalka badan qodobka ugu horeeya ee sababa daalka badan waxa weeye fadhiga badan wuxuu sabab u yahay inaad dareentid tamar la'aan waqtiga intiisa badan aad daalanaatid dad badan ayaa halkii ay ka jimicsan lahaayeen waqtiga badankiisa ku isticmaala guri joog iyo inay fadhigaas iska fadhiyaan marka la weydiiyo sababta aanay u yara jimicsan gurigana uga bixin ku odhanaya waanu daalanahay baaritaano badan oo la sameeyay kadib waxaa la ogaaday in jimicsiga ama dhaqdhaqaaqa uu qofku sameeyo uu ka caawinayo daalka badan markan ku leeyahay jimicsi khasab maaha inaad 30 minute soo oradid ama aad gym ka tagtid laakiin waxaad samayn kartaa inaad samaysid dhaqdhaqaaq ka badan kan aad imika samaysid tusaale yar haddii aanu soo qaadano haddii waqtiga intiisa badan aad fadhidid isku day inaad yara socsocotid adoo guriga jooga waxaad kaloo samayn kartaa inaad dibadda u yara baxdid dhowr daqiiqo si aad u mijo baxsatid dhaqdhaqaaqa aad samaynaysaa wuxuu kaa caawinayaa in aadan dareemin daal badan noloshada iyo riyooyinkaagana aad kaga rumaysid halkii aad ka fadhiyi lahayd ama aad ka jiifi lahaydba sababta labaad ee ka dambaysa daalka badani waa hurdo yari haddii ay caado kaa noqoto inaad habeen kasta seexatid waqti dambe ogsoonow inaad ku ciyaaraysid tayada hurdada aad helaysid marka hurdada laga hadlayo waxaa la cadeeyay in dadka waaweyn badankooda ay u baahan yihiin inta u dhaxaysa 7 ilaa 8 saacadood oo hurdo ah habeen kasta haddii aadan hurdo kugu filan helin habeenkii daal badanna aad dareentid maalintii waxaa muhiim ah in aad wax ka bedeshid waqtiga aad seexatid jirkaaga wuxuu qabtaa waxyaabo badan intaad hurdo waxyaabahan waxaa ka mid ah in jirku soo daayo hormoonadaas waxay jirka ka caawiyaan hagaajinta unugyada waxa kale oo jirku qabto intaad hurdid habeenkii ayaa ah inuu soo celiyo tamarta ama enerjiga maalintii oo dhan markaanu isticmaalno enerji waxaynu habeenkii u baahannahay hurdo tayo leh si aan u soo ceshino enerjiga haddii aynaan helin hurdo inagu filan waxa uu jirku waayaa waqti uu ku soo celiyo enerjigii inaga baxay maalintaas taas oo keenta inaanu dareeno daal badan maalinta ku xigta teeda kale markaynu hurdno habeenkii waxay maskaxdu kaydaysaa wixii macluumaad ah ee cusub wixii qashin ahna way kaga takhalustaa marka aanu dhinaca maskaxeedna eegayno haddii aanan hurdo inagu filan helin waxay keenaysaa in xasuusta waxaynu baranay ay aad u yaraanayso haddaba daawada si aad hurdo tayo leh u heshid isku day inaad habeen kasta isku waqti seexatid qodobka saddexaad ee isaguna keena daalka badan ayaa ah stresska ama cadaadiska badan waxa uu sababi karaa madax xanuun calool xanuun iyo daal badan oo aad dareentid markaynu stressaysannahay wuxuu bilaabaa jirkeennu inuu galo isdifaac tani waxay keentaa in adrenaliinkeennu uu kordho jirkeennuna uu u diyaargaroobo inuu la tacaalo stresskaas haddii uu culaysku ama stresska uu yar yahay wax dhib ah ma laha laakiin haddii stresska uu yahay mid weyn waxay keenaysaa in jirku uu isticmaalo enerji badan si uu isu difaaco taas oo sababaysa in aynu dareeno daal badan qof kastaaba wuu la kulmaa stress laakiin waxaa lagu kala duwan yahay sida looga falceliyo barashada sida loo xakameeyo stresska waxay keenaysaa in aynaan tamar badan ku isticmaalin tusaale haddii aynu soo qaadanno arrin ayaa laga yaabaa in aad go'aansatid inaad ku dhammaystirtid hal isbuuc gudaheed arrintaas oo ay run ahaantii dadka badankiisa ku qaadato bilo ama sanadaba dhammaystirka aad doonaysid inaad arrintan ku dhammaysid hal isbuuc gudaheed ayaa waxay keenaysaa stress iyo culays badan oo naf ahaaneed taas oo sababaysa in marka dambe aad dareentid daal badan oo joogto ah marka halkii aad isku dayi lahayd inaad arrintaa ku dhammaystirtid hal isbuuc gudaheed waxaad qorshaysaa inaad waqti ka badan ku dhammaystirtid bil ahaato ama wax ka badanba arrintiina si fiican ayaad u dhammaynaysaa stress iyo daal badanna ma dareemaysid qodobka afraad oona ah kan ugu dambeeya ayaa ah biyo yaraan biyaha oo aynu yaraysannaa waxay keenaysaa inaynu dareeno daal badan jirku wuxuu u baahan yahay biyo si uu u shiido cuntada wixii qashin ahna uu uga saaro
fuuqbaxa ama biyayaridu waxay jidhkeenna saamayn ku yeelanaysaa marka aynaan cabbin dareere inagu filan si aynu u beddelno biyaha ku lumay kaadida saxarada dhididka iyo neefta aynu neefsanaynaba biyayaridu keliya jidhkeenna kuma keento daal iyo haraad waxa kale oo ay keentaa madax xanuun iyo wareer badan caafimaadkeenna dartiis aad iyo aad ayay muhiim u tahay in aynu cabno biyo inagu filan haddii daawad uu muuqaalkan ku qanciyey muuqaalo noocan oo kale aana aad doonaysid nagu soo biir laygta iyo sabskraybtana ha naga ilaabin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu